السلام عليكم دمان ولا Soomaaliyeed meel baad joogtaan sida la wada socotaan waxa ay dunida idil hadal haysaa cudurkan safmarka ah ee coronavirus ama loo yaqaan COVID-19 cudurkan oo kasoo bilowday Wuhan China sanadii tagtay ayaa albaabada isugu laabay dunida inteeda badan isagoo runtii si xoog leh ugu faafay dhulal badan oo cusub cudurkan oo soo ritay in ka badan 2 milyan oo qofood no dhinteen in ka badan 150,000 oo qofood ayaa ilaa haatan wax talaal ah ma aan daawo ah aan loo helin balse waxaa jira talooyin badan ay nafaran qolyaha caafimaadka ah si aan u ilaalino nafteena una taxadarno sida inaan guriyaha joogno oo ka fogaano meelaha dadka isugu imaanayaan inaan gacmaha si joogto ah ugu meerano biyo iyo saabuun ama isticmaalno waxyaabaha dareeraha jeermis dilaha ee loogu talagalay gacmaha inaan ka fogaano dadka xanuunsanaya anagoona sida kooreenin inaan nafteena sidoo kale hadii aan dareeno xanuun inaan ka fogaano bulshada inteeda kale ama familka sidoo kale toolaha markii aan ku faceyno ama hindiseyno inaan afka daboolano iyo waxyaabo kale oo badan balse maanta muuqaalkan waxaan rabaa inaan kaga hadlo qodob runtii kaalin muhiim ah ka geysan kara la dagaalanka cudurkan ama cudurada kaleba kaasoo ah difaaca jirka ama immune systemka haddaba waa maxay difaaca jirku waa habka jirku iskaga caabiyo waxyaabaha dhibka u geysan kara haddii ay noqdaan waxyaabaha jirka banaankiisa kaga imaan kara sida viruska parasiteska bacteriada ama sidoo kale waxyaabaha jirka gudihiisa ka dhalan kara sida kansarka oo kale difaaca jirka markaan leenahay ama immune systemka runtii waa system aad iyo aad u ballaaran waxyaabo badan ayuu ka kooban yahay sida wuxuu ka kooban yahay unugyo badan white blood cells oo kale wuxuu ka kooban yahay molecules badan proteins badan kuwaasoo isku tagay una wada shaqeeya si ay u ilaaliyaan u difaacaan jirkeena haddaba coronavirus ama COVID-19 waxa uu ka mid yahay cuduradan faafa ee la isqaadsiiyo kaasoo dhibtiisa inta badan ay ku badan tahay dadka ama ku dhaca dadka difaaca jirkooda uu hooseeyo waxaa jira waxyaabo badan oo naaqusin kara difaaca jirka iyo waxyaabo badan oo ku xoojin karna ayaa jiro haddii aan kasoo qaato qodobada ugu muhiimsan waxay ka mid yihiin qodobka koowaad inaan ka fogaano amaba inaad ka fogaato waxyaabaha ay ku badan yihiin inuu sokorta cusbada subaga sidoo kale inaad isticmaasho cunto qudaarta freshka ah ayu cuntooyinka isku dheelitiran oo ay ku badan yihiin vitamin A-ga vitamin C-ga vitamin D-ga tusaale ahaan vitamin C-ga oo kale wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ugu muhiimsan ee lagu xoojin karo difaaca jirka uma baahnid inaad isticmaasho supplements amaba kaniini inaad isticmaasho saad uga hesho vitaminadaas waxaad isticmaali kartaa qudaarteena kala duwan sida tusaale ahaan waxaad isticmaali kartaa oo kaleeto lindanaanta orangeska oo kaleeto strawberry-ga oo kale waa laga helaa kiwiga oo kaleeto waxaa ka heli karnaa oo kaleeto broccoli-ga oo kaleeto maalintii waxaa loogu talagalay recommended daily intake qofka maalintii intuu qaadan karo waxaa loogu talagalay 75 ilaa iyo 100 miligram inta u dhaxeyso sidoo kaleeto vitamin A-ga oo kaleeto qofka wuxuu isticmaali karaa wuxuu ka heli karaa hilibka oo kaleeto beerka bataati macaanka cambaha babayga oo kaleeto waxaa isticmaali kartaa maalintii 600 ilaa iyo 700 oo microgram cabirkaas ah vitamin D-ga oo kaleeto waxaa badanaa ka helnaa qoraxdan ka helnaa laakiin dadka aan qoraxda haysan waxay isticmaali karaan caanaha kalluunka waxay isticmaali karaan mushrooms oo kaleeto waxaana loogu talagalay maalintii qofka inuu isticmaalo 5 ilaa iyo 10 microgram cabirkaas ah qodobka labaad xabad soodada runtii waxa ay ka mid tahay waxyaabaha kaalinta muhiimka ka qaata la dagaalanka cudurada waxaa inoo sheegay nabigeena maxamed calayhi salaatu wasalaam oo yiri waxay daawo u tahay cudur walba markii laga reebo gawga iyo dhimashada waa dareemi karnaa qiimaha ay noogu fadhiso iyo kaalinta meesha ay noo joogto qodobka saddexaad inaad maalintii sameyso jimicsi ugu yaraan 1 saacadood qodobka afraad inaad ka fogaato waxyaabaha stresska ah ama murugada oo kaleeto qodobka shanaad inaad ka fogaato waxyaabaha muqaadaraadka sida sigaarka oo kaleeto qodobka lixaad inaad habeenkii seexato in kugu filan hurdo 6 saacadood 7 saacadood ilaa iyo 9 saacadood inta u dhaxeyso hurdada runtii kaalin muhiim ay ka qaadataa xoojinta difaaca jirka waxaa jira research badan oo sheegay oo cadeynaya in qofka seexda habeenkii in ka 6 saacadood waxaa hoos u dhacaya 70% natural killer cells oo ah runtii unugyo kaalin muhiim ah ka geysta difaacidda jirka qodobka 7aad oo noqonayo inaan nadaafada badino nadaafada runtii kaalin muhiim ah ka geysataa waxyaabo badan ay naga ilaalisaa waayo nadaafad darrada qofka waxay u sahashaa in cudurka si fudud ugu dhaco qodobka ugu dambeeyo inaan badsano biyaha cabitaanka biyaha caadiga tusaale ahaan oo kaleeto waxaa loogu talagalay maalinta qofka inuu isticmaalo 2 litir ilaa 3 litir inta u dhaxeyso
ama sidoo kale 10 ilaa 15 inta u dhaxeyso koob sino glasska caadiga sidoo kale waxaa rabaa inaan ku daro oo ka hadlo waxaa jira ayaantan oo isla maraya dhammaan social mediaha in viruskan coronavirus uu ku noolaan karin wadamada kuleelka ah macnaha inuusan ku noolaan karin wadamada kuleelka ah heerkulkooda uu sareeyo sida Soomaaliya oo kale balse research soo baxo cadeynaya jira in viruskan uu ku noolaan karo meel walba haddii noqoto qabow haddii noqoto kuleel waxay leeyihiin viruskani waxa uu ku dhiman karaa ilaa 92 centigrade heerkulkaas macnaha xitaa waxay leeyihiin 60 centigrade uu ku badbaadi karaa viruskan oo kuman uu ku noolaan karaa heerkulkaas tusaale Soomaaliya haddaan soo qaadano kuleelkeeda markay ugu badan tahay ilaa meequu gaaraa 35 ilaa 40 ayuu gaaraa heerkulka macnaha cudurkan meel walba ayuu ku noolaan karaa qabow ha ahaato kuleel ha ahaado wadanka qof yar ayuu ku dhici karaa qof weyn ayuu ku dhici karaa faqiir ha ahaado taajir ha ahaado waxa waa muslim ha ahaado gaal ha ahaado qof walba ayuu ku dhici karaa marka noqon muwaadin xilkas oo ilaali naftaada iyo bulshada inteeda kaleba adigoo raacaya talooyinka dhaqaatiirta iyo hay'adaha caafimaadkaba waxaa runtii noo soo dhow bishii Ramadaan ayaa soo dhow insha Allah khayrkeeda wadato Allah naga dhigo kuwi ka faa'iideysta aan badino salaada sadaqada ducada aan badino insha Allah Allah naga dulqaado cudurkan isaga ayaa awood u leh hadaba waxaa idinkaga tagayaa waxaad ogaataan ka hortagga cudurku wuxuu mar walba ka wanaagsan yahay daaweyntiisa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.